السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا محمود عبدي القناة كان قد دعونا سوا بدل فيلمز عن فلوس فضلا هديت أمر كورس سبب وقت القناة كان سبسكرايب صار فيديو لايك صار لايك واحد بدل أنا قاعد أول أصحاب تاعنا أوصي شركة سوا إنه صاحب بس ما أنتوا حكينا برنامج فيديو فرع سوق مرة بدل وأنا قبلت أنا وجالي كان بران كان فلوس صوت دوبنا برنامج كله لكن سمعت حني ولا برنامج عصب برنامج جالس حلوة عابا تبتر waxaan kaga hadli rabnaa 10 qof ee noqon doona hadda maanta waxaan kaga hadli rabnaa part 1 10 youtuber oo ugu subscribe ka badan marka dhahayno 10 youtuber oo ugu tunka weyn Soomaalida waxaa jira youtuber kale oo badan oo subscribe koodu u xiran yahay laakiin san numberka sheegana number ka badan ee subscribe haystaan kuwaas anaga waxaan naga mid karin laakiin waxa kale oo jira website kale oo youtuberada subscribe u qarsan yahay lagu ogaan karo subscribe kooda laakiin xaqiiqo ma aha lama hubo boqolkiiba 60 ilaa 70 waan laakiin anaga waxaan ka hadlaynaa maanta oo muhiimadeena ah 10 youtuber oo subscribe badan subscribe kooduna uu furan yahay haddana waxaan ka hadli rabnaa 10 youtuber oo subscribe badan youtuber koowaad waa waqal tan kale asxaabi hal mid kale naga hilmaamo youtuber ka hadlana ama shakhsi ha ahaado ama diin ha ahaado ama studio ha ahaado ama television ha ahaado anaga numberka subscribe kaas ku xisaabtayna kaalinta koowaad waxa soo galay waqal studio wuxuu subscribe ahaan u haystaa 1 milyan iyo 100,000 oo subscribe waxa uu YouTube ka samaystay 26 Agoosto 2012 wuxuu YouTube ka leeyahay 9 sano muddo aad u badan waxa fiis ahaan u haystaa 620 milyan oo views waxa kaalinta labaad galay Cabdi Askari Tube wuxuu subscribe ahaan u haystaa 919k oo subscribe ama 919,000 oo subscribe waxa uu YouTube ka samaystay 5 December 2012 waxa uu leeyahay 11 sano iyo wax ka sii badan waxa uu fiisahan u haystaa 404 milyan oo views waxa kaalinta saddexaad galay YouTuber ka weyn KCK Films and Followers wuxuu subscribe ahaan u haystaa 823,000 oo subscribe waxa uu YouTube ka samaystay 18 Agoosto 2014 waxa uu fiisahan u haystaa 156 milyan oo views waxa kaalinta afraad soo galay Hongable TV waxa uu subscribe ahaan u haystaa 195,000 oo subscribe ama 695k oo subscribe waxaana YouTube kan la sameeyay 3 October 2011 waxayna fiisahan u haystaa 249 milyan oo views waxa kaalinta shanaad soo galay Armehena waxa uu subscribe ahaan u haystaa 596k oo subscribe ama 596,000 oo subscribe waxa uu YouTube ka samaystay 12 January 2009 sano dhan YouTube kale waqti aad u badan 67 milyan oo views ayuu fiisan u haystaa waxa kaalinta lixaad soo galay ogaalka dunida waxa uu subscribe ahaan u haystaa 539,000 oo subscribe waxa uu YouTube ka samaystay 7 October 2014 waxa uu fiisan u haystaa 51 milyan oo views waxa kaalinta toddobaad soo galay Asad Hajiyo 27 waxa uu subscribe ahaan u haystaa 534 ama 534,000 oo subscribe waxa uu YouTube ka samaystay 3 December 2019 2 years bas YouTube leeyahay isla weyn haro saada waxa uu fiisan u haystaa 50 milyan oo views waxa kaalinta sideedaad soo galay Adina channel waa maanta waxa soo tirinay TV ama stuudiyaal ama YouTuber rag leeyahay waa markii ugu horeysay qofku mar soo gasho adna abaal badan ku haya haro soco adna channel waxa subscribe ahaan waa 615,000 oo subscribe ama 585k oo subscribe waxayna YouTube ka furatay 14 September 2017 waxayna fiisan u haystaa 74 milyan oo views waxa kaalinta sagaalaad soo galay Sharma Boy fanaanka sanadka waxa horta YouTube ku jira muddo dheer hal sano oo ilaa 6 bilood gaaraya waxaanu ku helay subscribe badan views badan waxa ku leeyahay fanaan hore u soco
Sharma Boy wuxuu subscribe ahaan u haystaa 508k oo subscribe ama 508 kun oo subscribe. waxaa uu YouTube ka samaystay 10 October 2019 waxaan u haystaa 49 milyan oo views. waxaa kaalinta tobnaad soo galay best YouTuber of Somalia 2021 Liicaato official waxaan subscribe ahaan u haystaa 492 kun oo subscribe ama 492k oo subscribe. waxaan uu YouTube ka samaystay 15 Maaj 2020 waxaa uuna fiisaan u haystaa 32 milyan oo views. Okay asxaabay 10 YouTuber oo dadka Soomaalida waa dhamaatay saa hore nigu sheegay waxaa jiray YouTuber badan oo subscribe-ka hadda soo qaaday subscribe ka badan haysta laakiin subscribe ugu xiran yahay waxaana kamid ah Haataf Studio, waxaa kaloo kamid ah Balanbaaris Studio, waxaa kaloo kamid ah Hawraar Media, waxaa kamid ah Shiino Coley, waxaa kamid ah Dirsle Cabdi, waxaa kamid ah Raaga Cabdi. waxaa jiray YouTuberadaas aan soo sheegay ha ka reebin Liibaan Jaamac. waxaa laga yaabaa subscribe-ka soo sheegnay ka badan inay haystaan laakiin sababta u soo qaadado weyn waa fahmi kartaan sababtoo waa subscribe-kooda u qarsan. barnaamijkan asxaabay hadduu gaaro 1,000 oo like waxaan soo sameyn doonaa part 2-giisa. waxaan soo qaadan doonaa application-nada ee dadka social media ay ka isticmaalaan. application-nada mid kamid ah waliba labada barnaamij oo soo aadeen waxaan soo qaadan rabaa Instagram-ka ama TikTok. Instagram-ka ama TikTok labada ka soo qaadan doona oo u soo kala hormarin doona community-ga soo dhigi doona ininka maxaa asxaaba isku soo xubinaysan intaan negative waxaan leeyahay hal kelmad samee waxaa sameyn lahayd berri maanta samee waxaa sameyn lahayd maanta isla markaas ama isla waqtigaas.